xuska dhalashada nabigeena Suubana Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo dhalashadiisa ku beegneed maanta ayaa waxa si weyn looga xusay gudaha magaalada Boorama. xuska dhalashada nabigeena Suubana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxa habeenkii xalay laga xusay xadrooyinka kala duwan ee ku yaala gudaha magaalada Boorama. culumadii iyo ku sugnaa madashaasi ayaa waxay ka sheekeeyeen ahmiyadda ay leedahay maalintani iyaga oo fariimo kala duwan u diray kuwa ka soo horjeeda xuska maalintani lagu weyneynayo ayaa waxay yiraahdeen ilaahay nabigeenu ku amaanay ila raxmadiisu abuurkay wixii ilaahay abuuray ee khalqigiisa oo dhan inay raxmadda nabi maxamed gaadho ayuu ilaahay ka hadlayaa cid kale oo sidaa lagu sheegay ma jirto marka tafadulkaas ilaahay nabi maxamed ayuu inagu sheegay wa innaka la'ala khuluqin azim kama qala Allah fi kitabillah وآياتك وحكتها إلهي النبي نكو أماني أي كم تهي هذان على ورنا ودنو لما دمائك هذا أمانة النبي إلهي كو أماني فين نسكتها إلهي كو أماني ده إلهي أبورتي أي أماني مرة إنه خطبا مرة سليمان مالي وين كل في إلهي نقول رجي ده وين الإلهي ما كمان تنيك يا أماني إنك أنا إن أمانة واجب هوا هذين قاليا وحن كنا مسترنا kusoo gaabinana inaan maalinka maanta ka midowno maxabada nebiga iyo jacaylihiisa iyo soo dhaweyntiisa dadka islaamkiya ha isku waafaqaan oona laga kala noqonin ayaan kusoo gaabinaynaa sallallahu ala sayyidina muhammad ummadda weydiin nabi maxamed weyn alayhi salaatu wasalaam nabigeena weyn waxa weeye walaalayaal waa ka ilaahay u jecel yahay waa ka ijaabada weyn ilaahay siiyey waa ka fadligiisa ku noqonay ummadda ugu khayr badan وكان رجينا نقيامها إن شفاعة ديس إلى أكتيس شمال فوقهم سو شفاعة نلقينا ما واحد رجينا إن عمل كيس اسمه الله ماي ولي بس لا رتكلوا ولي بس هصون وحق عند الصايرة ويا ربي لا والله إلهكم سؤال ما أنت قيامها مع شركة مخلوقاتك إلهي تاجي كل جيبه وحلقات بقى وجمال عمر طبيع تلفزيون عالمي بدعة 24 TV مقالة بورما.